nidaam nololeed dhammaystiran ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la rabo inay ka taliso. erayga addiin macnihiisa muxuu yahay? carabtii hore sidee u isticmaali jireen? qur-aanka sidee sharci iyo qaanuun iyo dastuur oo boqorkaas uu lahaa oo alla uusan dejin laakiin dadkaas ay samaysteen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. داود يالكسور دوادا مركلا إيه برنامج كيني تحناها هي الطريق إلى الهدى وضد هنونك كاسو أنا أقصو هالليني رياضا معناه هذا دور صومي هنهرو أقصو هذا لني كلن كيني تجي معناها أريجا الدين عربتي هو رسيدة واستعمال جرين قرآن كسيدة وقصو أروري haddana waxaan rabnaa insha allahu kulankeenaan inaan uga hadalno bulshooyinka maanta adduunka ku nool ereyga addiin sidee u fahansan yihiin, sideese ugu dhaqmaan. markii la dhaho addiin qofka maanta nool maxaa maskaxdiisa kow kusoo dhacaya? markii addiin uu ka hadlayo macaanidii hore oo aan ka soo hadalnay ma u saaran yihiin waxyaalaha diin macnaheeda ku jira, mise laba wuxuu u kala haystaa macne? waxyaalahaas oo dhan waxaan ku ogaan doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo caawa kulankeenan. waxaa igala qayb galaya barnaamijka injineer cabdilxakiim sheekdoon iyo doctor zubayr. soo dhowaada injineer cabdilxakiim, haddaa wax faahfaahin naga siin karto bulshooyinka maanta ku nool adduunka iyo addiin waxa ay ka aaminsan yihiin ama sida ay u dhaqmaan marka la fiiriyo habdhaqankooda. ma waxay addiin u haystaan macaanidii hore oo aan ka soo hadalnay oon soo qeexnay oo ahayd yacni alkhuduuc tadallul, isdhiibid, maaragtay isu dullayn, isjejabin, mise macaani kale ayay u haystaan? بسم الله الرحمن الرحيم. horta macnaha diinta ficlan waaqic hadda annaga aan ku noolnahay waxaa moodaa ama sida muuqataba aad inuu usoo aruuray, waana midda hadda keenaysa in jamaacadu barnaamij badan ay uga hadasho macaani badan oo islaamka u lahaa ama asaasiyaad u lahaa inay doorsoomaan. waqtiga oo dheeraaday iyo dadkii oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala kasii fogaaday. lidaalika addiin markii la fiiriyo annaga sidii hore xalaqada aan uga soo hadalnay inay tahay qaab nololeed guud, inay tahay nidaamka oo dhan, yani nolosha insaanka oo dhan taabanaya inay tahay. laakiin macnaha hadda adduunka markaa fiiriso diin inay noqotay wax oo ku soo aruurtay astaamaha cibaadada, shacaa'ir tacabudiya bis. waliba dadka qaar de inay sii gaareenba diin inay tahay muxuu ahaa yani wax oo mustalax loo adeegsado hadba meesha aad joogto. haddaa Faatikaanka joogto diin macnaheedu waxaa weeye waa diintii Kirishtanka. haddaad muxuu ahaa dhulkan Yuhuudda ay joogto diin macnaheedu inay tahay diintii muxuu ahaa Yuhuudiyada. haddii aad joogto dhul islaama haddii inay tahay diintu islaam. hadda waxaaba soo baxay wax kaloo leeyahay diin ibraahimiya oo kulligooda laleeyahay oo la isku keenaya. laakiin midda saxda waxa weeye ina addiina cinda allahi alislaam. diinta keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogol yahay islaam. waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala min. lidaalika diintaas laga hadlayo oo islaamka ah oo isdhiibista ah oo hoggaansanka ah oo adeecidda ah waa wax nolosha taabanaya, laakiin ma aha wax ku aruursan qayb nolosha ah oo astaamihii cibaadada keliya maaha. dadka maanta jooga adduunka cibaadadii iyo astaamihii cibaadada keliya ayaa waxaa la yidhi waa diin. qofka marka waxa lagu leeyahy waa mutadayin, lanno salaadiisuu tukadaa, qaabkiisa markaad fiiriso yani sunnadii baa ka muuqato oo maasha allah. laakiin noloshoo dhan intaas ma aha. diinta yani waa qaab ka weyn sida aan soo aragnay iyo sida hadda aan arki doono insha allahu tacaala. jazaaka allahu khayran. macnaha diin waa ka guda weyn tahay maanta dadka siday u haystaan. waxaa dhici karta inta badan markii la dhaho addiin in loo qaato xiriir ka dhexeeya qofka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala, sidii macnihii ay u aqoon jireen oo kale yani christianity-ga in sideedaba qofkan bayna alcabdi wa rabbih. laakiin maya, diinta waxaa waaye waa wax la rabo qofka muslimka ah nidaamka noloshiisa oo dhan inay harayso. walidaalika waxaa la arkayaa markii dadka kale uu la tacaamulayo, waxaa la arkayaa markii xalaal iyo xaaraan uu kala soocayo, waxaa la arkayaa markii uu ganacsanayo, waxaa la arkayaa markii uu la dhaqmayo dadka asaga ku hareeraysan. kulli diintii baa hareynaysa. laakiin ma ahan addiin wax qofkii intuu matalan masaajid la galo oo kale ama meel uu kaligiis la galo oo maaragtay aan la arkaynin meesha uu ku maaragtay ku dhaqan gelinayo.
ustaad zubayr haddii aad fiiriso maalan qeybta koowaad oo ereyga macnaha addiin maanta waaqica marka la fiiriyo iyo bulshooyinka sidee ula jaan qaadeen? bismi illaahi raxmaan raxiim. macaanida aan xalaqaadkii hore aan uga soo hadalnay oo kelmada diin waxaa ka mid ahayd sharci iyo nidaam ama habdhaqan ummadii ee leedahay, bulsho ee leedahay. sida aayadkii aan kusoo aragnay ilaahi subxaana wa tacala wuxuu dhahay maa kaana liya'khuda akhaahu fii diin ilmelik. diin ilmelik macnaha meesha ku jira waxay ahayd sharci iyo qaanuun iyo dastuur oo boqorkaas uu lahaa oo alla uusan dejin laakiin dadkaas ay samaysteen. ma garat maanta markaa waaqaca fiirino soomaalida caadadeeda iyo dhaqankeeda waxaa u degsan sharci ayay degsadeen. tusaale haddaa hadda soo qaato oo kaleeto waxaa ka mid oo kaleeto tusaale haddaan soo qaato waxaa ka mid reerka waxay leeyihiin gabdhaha maalan oo kaleeto gabdhaha ka tirsan oo kaleeto oo qabaa'ilka soomaalida ma guursadaan. ma garatay ayagoo u arkaayo in ay ka hooseyso. sidaas darteeda qofkii marka maanta nidaamkaas oo qabiilka uu leeyahay khilaafo oo isku daya gabartaas inuu guursado waxaa dhici karto in uu la kulmo ganaax oo bulshada kala kulmo ama asaga hadhow ilmihiisa la takooro, asaga la takooro, dhib badan oo soo koro. waa dhaqan ama caado ee ummada leedahay. ma garatay laakiin alla subxaana wa tacaala ma anzala allahu biha min sultaan. alle ma uusan dejin. alle nidaamuu dejiyey iyo sharci mid aan ahaynaan samaysan. markaa fiirisa maanta markii dhaqankii iyo caadadii saas waayo dhinacii kaleet markaa fiirisa madaniyadii iyo magaaladii waxaa arkaysaa dhaqamo badan ama sharciyo badan oo alla subxaana wa tacaala uusan dejinin oo dadkii ay ku dhaqmaan. waxaasoo dhan marka waxa waaye diin almelik. dadkaas marka waxaa laleeyahay hataa haddii alla subxaana wa tacaala jaanibkii cibaadada iyo shacaa'irtii alla u hoggaansamaan dhinacii diinta ahayd oo habnololeedkii iyo dhaqankii alla diintiisa ma haystaan. taasna alla subxaana wa tacaala agtiisa waxay ka tahay diin la-aan. asalaamu calaykum. waxaan warkaan ku dari lahaa markii waaqica laga hadlayo macaanidii kelimata diin ee qur-aanku u adeegsaday waxaa ka mid ahayd isdhiibistii iyo hoggaansamidii baa ka mid ahayd. yani sida aayaddii aan hore uga soo hadalnay alaa lilaahi diin اlkhaalis. yani diin alkhaalis ilaahay subxaanahu wa tacaala isagay u sugnaatay diinta dhabta ah oo khaaliska ah. waaqicina marka haddaan fiirino war diinta annaga ilaahay subxana wa tacaala aanaan u khaalis yeelayno ma wax juz-i ba. lidaalika haddaad u fiirsato dadka salaadoo kale waxaa laga yaaba in qofka aada ugu dadaalo in ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leey ilahay baan u tukanayaa. ficlan dadka waxaa laga yaabaa in badan inay dhahaan ilaahay baan u tukanaynaa oo loo khaalis yeelo. laakiin noloshii kale ilaahay subxana wa tacaala ma loo khaalis yeelaa? ma loo khaalis yeelo. hadday ahaan lahayd xaggee wax lagala kulmayaa, hadday ahaan lahayd hoggaansankii qofku waxaa laga yaabaa isagoo salaadii ku jira ya in amar khaldan ay soo saartay qabiilkiisa soo saaray ama kaaba qabiilkuu soo saaray inuu u hoggaansamo oo tii layska dhigo yani muxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala layska dhigo. lidaalika markaa u fiirsato waxaa ka muuqda tanaaqud yani inaysan dhammaystirnayn, inaysan qofka yani noloshiisao dhan aysan waxaynayn. diintan ilaahay subxana wa tacaala u barax yeelayso iyo hoggaansanka lagaa rabo waa hoggaansan dhammaystiran ya oo muxuu ahaa istislaam dhammaystiran, isdhiibis dhammaystiran wey. laakiin markaad tirahda qeybna waxa weeye ilaahay subxana wa tacaala isku dhiibaya isaga uga dambeynaya, qeybna waxaa waxaynaya dee waa wax ilaahay ogol yahay maaha. afatu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuruuna bibacd. qeybna ma rumaynaysaan, qeybna ma ku gaaloobeysaan. marka ficlan waaqaca jira inuu yani markii laga hadlayo macna diin fi linqiyaad iyo itibaaca inuu khaldan yahay. sidoo kale macaanida addiin waxaa ka mid ahaa ma ogtahay inay xisaab jirto macnaha isla xisaabtan oo qofka wixii uu sameeyo nidaamkaas uu leeyahay hab isla xisaabtan. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka meesha uu u diyaarsaday addoommadiisa inuu kula xisaabtamo waa aakhiro wey. muxuuna kula xisaabtamayaa nidaamkii uu usoo dejiyey adduunka intay joogeen ma ku dhaqanteen mise kuma iidan dhaqmin. qof walba jawaabteeda wuxuu ku helayaa aakhiro. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa meesha uu leeyahay yowma idin yuwafiihim allahu diinahum alxaq.
maxaa lagu abaalmarinayaa diintii xaq ahayd oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray oo nebi maxamed sal alla alay wasalam usoo dhiibay. waxa marka laga rabo dadka oo dhan inay fahmaan oo ay ku dhaqmaan oo ay noloshooda ku saleeyaan waxaa waaye nidaamka nolosha maanta adduunka ay raacaan baa berri ilaahay subxaanahu watacaala ku abaalmarinaya. haddii diinta ilaahay ay raacaan oo asaga isu dhiibaan oo ka dambeeyaan oo u hoggaansamaan, hada dad muslimiina waxay noqonayaan ilaahay subxaanahu watacaala uu berri ku abaalmariyo dadka mu'miniinta wuxuu ugu talagalay. haddii ilaahay subxaanahu watacaala nidaamkiisa nidaamaan ahayn ay qaataan, wuxuu raba ahaado, ama ha ahaado maaragtay kaaba qabiil, ama ha ahaado maaragtay nidaam dimuqraadi ah, wixii la rabo ha noqdo, ilaahay midkii uu soo dejiyay hadduu khilaafo kaasaa beri aakhira lagu xisaabinaya. waxaana dhici karta inaysan mudan meel maaragtay fiican aysan tegin. marka ilaahay subxaanahu watacaala xikmadiisa iyo raxmadiisa annagoo maanta adduunka joogna wuxuu noo sheegayaa hab maamulka u fiican oo bini aadamka uu qaadan lahaa meesha uu ka imaanayo. ina addiina cinda allahi alislaam. addiinna waa soo aragnay, waa nidaamka bini aadamka uu ku noolaanayo. marka ilaahay subxaanahu watacaala fursadda maanta uuna siiyey inaan ka faa'iidaysano oo nidaamka nolosheenna aan ku noolaanayno uu noqdo kaas asaga uu noogu talagalay, si berri aakhira markii aan tagna ilaahay subxaanahu watacaala abaalmarintiisii iyo wixii uu ugu talagalay dadka muttaqiinta ah aan insha allah uu maaragtay yani ula kulanno. daawadayaal kulankeenii caawa aan uga soo hadlaynay ereyga addiin intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo. intaan ku kulmi doonno kulan kale waxaan idin rajaynaynaa nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Oh